fiican baa la iiga farxiyay dal iyo dibadba waa la ii gurmaday guri baa la ii dhisay joodariyaal farx baa la ii keenay gurigina waa la ii dhisay kor iyo hoos bajiingada waxaa laga soo farxiyay qoys Soomaaliyeed oo xeryaha Dadaab ay ku haysato qiso xanuun badan oo dhawaan warbaahinta istaa u soo bandhigay dhibkooda aanahay hooyadii gabdhaha ka xanuunsanaayeen oo saddexda gabdhood ka xanuunsanaayeen mid umusha gurmad baa la ii sameeyay alxamdu al-shukri al-mahad ummadda soo caawisay aakhire iyo adduunba janno fardowsaan ku ogahay kor iyo kaalmo Allah siiyo lacag 500,000 ana way soo gaartay walaalahayga way mahadsan yihiin walaalahayga waan u ducaynayaa ducadayda Allah u aqbalo Allah gaarsiiyo ilaahay idankiisa waa hooyo 3 gabdhood oo ay dhashay oo midkood umul tahay ay maskaxda ka xanuunsan yihiin isla markaana geed ku wada xiran yihiin shalayna waxaan cabanayay oo waan rafaadsanaa maanta waxaan ku faraxsanahay guri in la ii dhisay oo si sharaf la iigu dhisay oo ilaahay baa mahad iyo shukri leh maanta aan ku faraxsanahay shucuurtayda shalayta aan ooyahay maanta ay ana sidii hore aan ahayn alxamdulillah farxaygu farax gaaray ilaahu ducadayda dadka in si xun u marina si san moogi tabar iyo taag dhaqaale midna umaysan haynin dhawaan ayayna muslimiinta u soo bandhigtay dareenkan xanuunka badan walaalahayo waxaan qarsada ma iyo muslimko ummadda caalinko walaalayaal waxa la ii soo tar waan qiirooday waan calool xumooday waxaan damcay dadweynaha muslimiinta dal iyo dibadba meelay jiraan caalinko dhan inay arintayda ay tixgeliyaan oo ay kaalmeeyaan oo guryaha la ii dhiso oo hantida iyagu ku quraan saari lahaa la isiiyo oo maxaan wax ugu qaban lahaa la isiiyo alla mahadii 5 bari kadib waa laga soo jawaabay codsiga hooyadan Soomaaliyeed lacag 500,000 oo ah midda dalkana waa la siyaama u dhiganta $5,000 waxayna duco iyo mahadnaq u soo jeedisay ummadda Soomaaliyeed ee soo caawisay sida ay soo caawiyeen ay gacan qabteen ayagana inuu ilaahayga boqorka midda qiyaamo khariye midda adduunba inay moodaan surxun alla aan marinin oo jannada galaan oo ilaahay baa inta lagu duceysta janna u fiican janna fardowsa ay galaan irsaaqada waasaca looga dhigo meeshay ka soo bixiyeen meel barakaysan alla ka dhigo ilaahay idankiisa bakaar aan damaynin alla ooga dhigo ducadayda dadweynahaas dal iyo dibadba ilaahay inuu gaarsiiyo wardiya Sayid Axmed ayaa sheegtay inay aad ugu faraxsan tahay gacanta loo fidiyay haddana maanta waan faraxsanahay xanuunkana Allah keena Allahna bixiyo ayagana way ii soo duceeyaan iyagoon ii soo duceynin wax iima soo diraan Allah ii aqbalo ayagana Allah ka aqbalo maantaan ka dareen fiicanahay waan faraxsanahay inaan dadka muslimka aan dhaxdiisa ku dhimanaynin oo la igu iloobaynin oo la jecel yahay ayaa ii muuqato oo maanta aan aad iyo aad ligu soo ooyay oo la igu soo qiiro oo aniga marka igu ooyaan hooyadii calool adayg lahayde dadka aaminsiinaysay aan noqday anigana ilaahay iimaan siiyay dadkana ii soo duceeyay mar kastaba iyo mar walba waa la ii duceeyaa ducadoodina ilaahay wuu ii aqbal ana ducadayda Allah u aqbali qaar kamida culimada xerada Ifo hooyadan ku nooshahay ayaa soo dhaweeyay jawaabta muxsiniinta Soomaaliyeed runtii waa laga soo jawaabay alxamdulillah muslimiintu aad bay u dubnugul yihiin gabdhuhu waa 3 xanuunsanaya qolka laba ku xiran mid umul tahay midna qolkan ay ku jirtaa ilmihi yaraa oo mid dhashayna halkan uu ku jiraa tan waa hooyadood waxa way ilaahay subhanahu wa ta'ala marka koowaad ha caafiyo aan la soo barino guud ahaan muslimiintu inay ilaahay soo bariyaan baan yaan ka codsanaynaa waxaan kala rajaynaynaa wadada saxda ah in cilaajkooda iyo wanaagooda loo maro waana insha Allah ta'ala hooyad ba hadda inta badan wadwaday wixii hadda ka dambeeya waxaan goosanay in culimadu isu istaagto dadka cilaajkooda hadii la yiraahdo wajiga sharciga ogol yahay ugu wanaagsan aan ku cilaajino biidnillaahi baari dadkii ka soo ajiibay ee soo baaqaa soo ajiibay xool u soo diray ee ku soo sadaqaystay dadka ayaan u mahadnaqaynaa alxamdulillah ilaahay khayr ha nisiyo xoolihii way soo gaareen xoolihii bixiseen way soo gaareen inta soo wado wax kala soo baxaysana way mahadsan yihiin khayr Allah siiyo inta la baxdayna way soo gaareen xoolihii way sitaa khayr Allah siiyo gurigi baa loo dhisay qaabka u yaalo caruurtii way xanuunsan waa ku xareysan hadda lagu soo xareeyay ilaahay subhanahu wa ta'ala wuxuu leeyahay wama anfaqtum min khayrin fa huwa yukhlifuhu waxa la baxdaan oo khayra haba yaraado ilaahay subhanahu wa ta'ala wuu ku bedelayaa bedel kale ilaahay khayr badan buu ku gelinaya
aakhare iyo adduunku ilaahay bedel ku gelinaya waatan gabadha walaashiina way soo gaaray baaq wax soo dirteen oo salaamaha u soo dirteen maartay hadiyadaha way soo gaadhay alxamdulillaah mahad alle u sugnaatay thumma ma aysan filaynin deeqdan farxad ayayna la ilmaysay mar kale waan iska dirahayay wallaahi oo bilaahi sidan in la ii caawinayo ma malaynaynin dar ilaahay baa la ii soo caawiyey laakiin ma filaynin wax alla xaggii ka imaaday alla waan helay waan u duceeyey waxay hadda awooddaa inay caafimaad geyso ubadkeeda xanuunsan cilaajiso ama ay daryeel wanaagsan u fidiso xanuunkoodana la tacaasho maadaama oo la soo caawiyey gabdhaheeda xanuunsan oo midda ugu yar ay jirta 15 sano waxaa ka mid a dadka soo caawiyey qoyskan Soomaaliyeed kadib markay ka dhageysteen warbaahinta Star ee ka danqaday Fadliilatu Sheekh Cabdullaahi Cali Aadan oo guri u dhisay gogol wanaagsanna u soo iibiyey waxa uuna sheekhu ka mid yahay culimada duruusta diiniga ka bixisa warbaahinta Star Maxamed Baaruud Xuseen warbaahinta Star Dadaab